السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كسر دواد 10 امتحانها ee aad kala socoteen channelka CR Warsame. Casharkeen ugu dambeeyay waxaan aragnay while loop iyo sida loo process gareeyo ayada oo og tahay meeqa loop ama meeqa wareeg ama meeqa iteration aad sameynaysaa. Casharkeen waxaan rabnaa inaan process gareyn karno intaasoo wareeg annaga oon aqoon meeqay noqonayaan, ma 3 wareeg noqonayaan, ma 5 noqonayaan, ma 10 noqonayaan ama wixii la midka ah. mararka qaar waxaa lagu magacaabaa sentinel controlled loops loop lagu xukumayo sentinel ama calaamad inta userku uu kasoo gelinayo calaamad aad og tahay ayaad rabtaa in aad shaqadan wado. marka waxaa mararka qaar dhici karto inuuna qofkaan ogeyn marka koobaad meeqa mar ayuu ku celcelinayaa loopkan, laakiin wuxuu og yahay inuu rabo waxaan inuu qabto dhowr mar waa meeqo, ma 3 ama 10 ama 20 lama yaqaano. markaasoo kale ayaa xaaladda noocaan ah sentinel in lagu xukumo la isticmaalaa. meeshii markii hore counter aan isticmaalayna oo aan wax tirinayna wareeg koobaad, wareegii labaad, wareegii saddexaad, haddaba waa tirin karnaa, laakiin tirintan hadda way ka duwan tahay tii hore oo ma ogi hore uma ogi meeqa wareeg ayay noqon doontaa. markii hore laakiin 5 ayaan ogaa loopku waataan dhahaynay while inta uu counter ka yaryahay ama la egyahay 5, intuu ka yaryahay ama la egyahay 10, 3 iyo wixii la midka ah. hadda lama ogo beforehand how many iterations ayaan samaynaya. isla tusaalahani ayaan isticmaali rabaa. waxaan rabaa inaan dhaho soo geli shaqaalihii macluumaadkiisa meeqa saac u shaqeeyay, saacad walba muxuu ku shaqeynayay, shaqaalihii koowaad markii la soo geliyo hay mid kale miyaa rabtaa inaan haddana xisaabino, haa hadduu dhaho aan haddana soo gelino, mid kale miyaa rabtaa inaan xisaabino, sidaas aan ku wadno ilaa userku uu dhahayo maya ma rabo mid dambe in la xisaabiyo. markaan marka uma baahnin counter uma baahnin wax noo tirinayo, laakiin dabcan initializationkii weli waa u baahannahay variable kale ayaan abuuri doonaa oo initializationkii aan ku samayn doonaa. waxaan abuurayaa variable aan ku magacaabayo keep going ama waxaan rabaa inay hawshii ii socoto. waxaan ku xareynayaa variablekan y ayaan ku xareynayaa oo aan uga dan leeyahay yes. markooda waxaan leeyahay variablekan keep going yes iigu shub. ma rabtaa in shaqadii la wado waaye, haa waa rabaa in la wado. loopkayga waxaan ku xirayaa marka shardi aan leeyahay while inta keep going uu la eg yahay y, haddii ay y ku jirto, or ayaan dhihi karaa keep going uu la eg yahay oo aan ka wadno ay ku jirto equal y, iska fiiri leekaanshaha markan ay ku jirto y capital. marka y haddii uu userku doorto oo small ama capital noqon karto labadaba, waxaan leeyahay waxaa samaysaa waxaa u qaadataa userku wuxuu rabaa in lagu celiyo. marka loopkeena markii aan markii hore dhahayay waxaa ii tirisaa inta laga gaaray 3, inta laga gaaray 5. marka waxaan leeyahay waxaa ii fiirisaa userka waa rabaa in lagu celiyo ma dhahay, waa rabaa in lagu celiyo ugu dhahaya. marka variablekan ayaa waxaan ku xarayn doonaa hadhow ma rabtaa in lagu celiyo aan dhihi doonaa keep going. variablekan la ayaa marka fiirsanaynaa yes oo y ama small ama capital userkan uu geliyo ayaan leenahay waxa uu rabaa in lagu celiyo. waxaan leeyahay marka sidaan samayn jirnay bis hours worked soo geli, pay rate soo geli, gross pay ii xisaabi. halkaa waa iska fududaynaynaa. kabacdi waxaan leeyahay kaliya waxaa ii soo daawacdaa gross pay oo employee 1 iyo employee 2 iyo ma xisaabinayno. waxaan leeyahay gross pay is gross paygii ayaan xisaabinaynaa. meesha ugu dambayso oo haddaad halkan aan dhahnay waa update statementigii, halkan waxaan ka dhigaynaa sida aan hadda samayn doono keep going inaan wax ka bedelno. dabcan while loop saddexdaas shay in laga helo waa sideedaba, ama ha ahaato sentinel controlled loop ama ha ahaato counter controlled loop, waa in laga helo initialization iyo sidoo kale conditionkii wax jeegaraynayo iyo meesha ugu dambayso variablekeennii ama sentinelka ama counterka wuxuu ahaadaba in la update gareeyo oo update statementi ayaa looga baahan yahay. waxaan leeyahay halka marka variablekeennii keep going waxaa iigu shubtaa userka waxaa weydiisaa do you want to calculate, ma rabtaa inaad xisaabiso another employee kale ma rabtaa inaad xisaabiso. waxaan halkan aan siinayaa hinti aan siinayaa userka oo waxaan leeyahay enter waxaa gelisaa y for yes. waxaan leeyahay userka waxaa gelisaa y geli haddii aad rabto yes in la dhaho. waxaan samaynayaa meeshan sadar cusub ayaan intaan keenayaa si loo arko. do you want to calculate another employee kale ma rabtaa inaad salary xisaabisid. waxaan dhahay enter y for yes. haddii aad yes rabtid waxaad gelisaa y ayaan leenahay bracket ayaan intaan
geliyey si aan u muujiyo userka waxa uu qabanay marka userkan hagaya si uusan wuxuu rabo u gel yes oo qoraal hadduu geliyo barnaamijka ma shaqeynayo si aad dareemaysid because yes kuma soo xiran waxaan ku soo xiray just y oo kaliya ayaan ku soo xiray marka waxaan lahay enter y for yes haddii aad yes u dan leedahay waxaa gelisaa y barnaamijkan wuxuu samayn doonaa marka inta aan rangarayn variable keep going marka hore annaga waxaan ku shubnay y oo yes aan ugu dan leenahay loopkii la soo geli doonaa keep going y miyaa ku jirto mise y capital mise small yes waa true wuxuu samayn doonaa shaqada oo dhan qaban doonaa grossby markuu xisaabiyo soo bandhigo ayuu wuxuu dhihi doonaa haddana userka ayuu u soo bandhigi doonaa intan do you want to calculate another employee enter y for yes userku markuu dhaho marka y riixo macnaheedu waxa waaye haa shaqaale kaan rabaa shaqadiisa in la xisaabiyo salarigiisa keep going maxaa geliyo y haddana waxaa la jeegarina doonaa loopkii waxaa la dhihi doonaa y keep going equals yes ma la eg tahay haa way la eg tahay haddana waa lagu celin doonaa wax kale hadduu riixo maya u riixo ama wax kale u riixo wuu joogsan doonaa programkeenii haddii aad rabto markuu joogsado ayaan waxaan dhihi doonaa sidii aan ku calaamayn jirnay waxaa soo daabacdaa the end programkii wuu dhammaaday oo kale marka haddaa fiiriso statementiga u dambeyso waa statementigii aan ku sheegaynay update statementiga waxba comment kuma qoray laakiin xasuusnaa waa update statementigii haddii aan rangareeyo programkan oo ku tuso outputkiisu siduu noqonayo waa ku celinaya ran ayaan leenahay wuxuu ku dhahay soo geli saacadii uu shaqaynayay qofkan waxaan leeyahay qofkan wuxuu shaqaynayay 21 saacadood saacad walbana wuxuu ku shaqaynayay $10 lacagta uu qaadanayay waxay noqonaysaa ku dhahay $210 wuxuu ku leeyahay markan do you want to calculate another employee shaqaale kale miyaa rabtaa inaad xisaabiso enter y for yes macluumaad dhamaystiran lagu siiyey marka haa waa rabaa leeyahay mid kale inaan xisaabiyo y ayaan doortay wuxuu leeyahay soo geli shaqaalihii labaad saacadihii uu shaqaynayay 22 saac ayuu shaqeeyey meequu ku shaqaynayay qofkaana $9 ayuu ku shaqaynayay wuxuu yidhahay $198 waaye lacagtiisa qof kale miyaa rabtaa inaan xisaabiyo inta hartaa ku celcelinta marka intii aad y riixdo uu soconayaa programkaaga oo uu kugu celcelin doonaa intii aad rabta ayaa xisaabin kartaa 5 shaqaale 10 shaqaale 100 shaqaale adiga iyo intii aad liiskaaga dhamaynayso markii aad dhamayso ayaa waxaad dhihi doontaa no ama wixii la midka ah kabacdina wuxuu ku dhihi doonaa the end programkii wuu dhammaaday intaas ayaan kusoo koobaynaa casharkana sentinel controlled while loops ayaa la dhahaa qaybtan inaad ku xukumi karto while loop adoo isticmaalaya calaamad sentinel hadda marka y ayaa isticmaalay yes ayaan ku xukumayay hadhow waxaa ku xukumi kartaa wax kale markii aad dhamayso waxaad riixdaa waxaas waa dhihi kartaa iyo calaamado kale oo sidaas oo kale waa ku mahadsantihiin waqtigiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh